tusalo wacan ninkaad bilanay maqlayseen iyo bilaad laga naaray baalbaal yaa barnay caawa meesha soo galay baardheen waan kuu bushaarayn sidii baarqab geel bidhaan quruxey naaha boodine beerka soo saar صومالو موكاري نروالو مسوها مويتاهي لبحضر الضويدو مقرشوهي دقايد الكويسكيو اللاهي جرير العباي سلام شاريو جملر ديدنا ودارهاي الوشيدين كما جوغي كاروي سيليتشي فوكو بصولاي waxa aad maqlayseen codkii xaaji maxamuud diiriye faarax balbal aku ceelka dhagax buuriyo cidhibkii qallaafoodiyo carabta la looli jiriyo furaashda cabbee yadoo udbayiyo alla caynbacayn mahaye sidaan ceyrigaab ka yeelahay خالد وامرا هلاقينيو إذلكي يحيود قرانيو إذل أوغويلي وقاف يا ذرير شرشوراي malahayga wuxuu maankaagu ku weydiinayaa baynow waa kuma baalbaalkan caawa iyo moogan barnaamijkii fanka iyo sugaanta lagu faaqidi rabaa waa weydiin uun ay gar u leeyihiin dhalinta iyo jiilka dib ka soo kacaantay waase weydiin gef ku ah waayeelka waayo badan u soo joogay baalbal haddiiba aadan aqoon dheeraada u ahayn sowmuu ahayn mulaxan maskaxeedkii abaabulay ee abuuray ciyaar dhaqameedkii balwada loo yaqaanay oo ah ciyaar ka farcantay ciyaarta soo jireenka ah ee dhaantada loo yaqaano kolkii uu jigjiga u boqolay 1942 suuma ahaa waxyaabihii maskaxdiisa mashiin ahaan inta uu uga shaqaysiiyey dabadeedna uu kala soo dhex baxay dhaantada inta uu ka goosto inuu balwada yagleelideeda u dhaqaaqo dabadeedna uu ka jiba keenay bal waa kan maxamuud diiriye faarax balbal oo ka xog warramaya balwada iyo in cid kale barhada ay la sheegan karayso biraadka intaan ku noolahay qofkii balwa qaada wow been intaan bilfinkii bayaadku qoraan baalbaalku saxeexay beerguba tan iyo barma daartilbaanka rogo anaa heesta layga bawsaday dadkan barayba balwada tuubaye ninka bilsin qaaho taywanahay wax kastaaba waxay leeyihiin marxalado kala dambeeya oo marba marka ka dambaysa horumar ay ku sii tallaabsan karayaan si lamada sidaas baa heesaha Soomaaliga ee mooganba aynu dhageysanaa ay soo mareen marxalado isburunayo oo kala ayni duwan waayo baraare iyo wanaag mudan iyo waqtiyo aad u dhibadnaa intaba heesaha Soomaalidu way soo gaadheen waqtigii ugu cajiibka badnaa waxa uu ahaa waqtigii kala guurka oo Soomaalidu waqtiyadaas ay reer magaalooday qalab danan ku shaqeynaya ama muhiis ku shaqeynayna ay taariikhda markii ugu horeysay heshay Soomaalida oo sidii iska caadiga ahaydba golayaasha fagaaraha inta ay iskugu yimaadaan jaandheer dhaanto wiglo iyo saylici ya ciyaaro kale ku soo bandhigi jiray ayaa kolkii dambe kolka ay dhinaca magaalooyinka u gudbeen ee u boqoleen waxa ciyaar dhaqameedkii u bedeleen fadhi inta ay iska soo horjeestaan sacab iyo jiib iyo durbaan isla helaan bay dabadeedna isku dayay jireen inay dhinaca heesaha u rogaan qaafiyadii ugu horeysay ee heesaha qaraamiga lagu qaadi jiray waxay ahayd nooca loo yaqaan heelo
waxaana heelo hindisaadeeda iska lahaa maxamuud diiriye faarax baalbaal balada baalbaal oo kol sii horeysay kaba hadlayay heesiisii ugu horeysay ee heelo uu ku soo bandhigo muusicna la saaro waxa uu ku yidhi sida tan hello ayaan bilaabay sanadkii ugu horreeyey ee la iigu tumo kaban wuxuu ahaa dhexdooda qaaliqo hortulaaney allaale alla wiilo bari qosol qaadhigii dumari allaale alla wiiloy markaasaa aamusa ina beeraayo hindiga la yidhaahdo oo hindi soomaaliga baa aamusay markaan garaacay dhegaystayaal waa barnaamijkii koowaad oo aanu kaga xog warramano baalbaal iyo sheekooyinkiisa qaybaha dambe waan jecelahay heelada iyo dhaantooyinka iyo balwada heerka uu kaga jiray iyo weliba ereyadu adeegsan jiray inaynu si gaar ah u faaqiddo mawduuca koowaadse waxaan ku dhugan doonaa dhaantooyinka waayihii uu baalbaal ku cusbaa isaga oo kolkaas ku sugan magaalada jigjiga haweenay ku falan oo si weyn looga dambayn jiray dhaantadana si weyn u taqaana sheeko dheer oo dhex martay bal marka horeba aanse wax yar idiin guud maro heello oo aynu ku sheegnay inay ahaayeen qaafiyadii heesihii qaraamiga ahaa ay ku socon jireen ayaynuna sheegnay in uu hirgelinteeda iska lahaa abwaan baalbaal bal waa kan isaga oo ka xog warramaya heestii heelo loogu magacdaray waxaana uu heestan ku xusay in ay adeegsanayeen daasado miisas sacabo ninba halkii uu sacabka la haleelo buu jiibta heesta la cuskanayay balada waa kan abwaanka oo inoo xog warrama markaasaan helloy 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 hilaani dhowey maxaabsaaday markaasaa daasad iyo habeenkaasna waa xasuusina iyo miisaska iyo daasado iyo sharaantii helloy 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 hilaa abilo mariga hadalay saasaa u bilaabay dhaqanka soomaalidu dhegaystayaal waa mid soo jireen ah ciyaaruhuna waxa uuna inoo muujinayaanba oo raada u yihiinba soomaalidu inay tahay quruun fac weyn oo muddooyin badan soo jirtay heelo iyo wiglo ama heelo iyo dhaanto haddiiba dhagahaaga ay ku soo dhaceen macnuhu ma aha in ciyaaraha dhinaca dhaqanku uu yahay kuwaas oo keliye waxaa jira tobannaan iyo tobannaan ciyaarood oo dhinaca miyiga weli ku sii aasan soomaaliduna weliba ay adeegsato jaandheertu waxay ka mid tahay ciyaaraha jiibta iyo jaanta dheh ee soomaalidu sida weyn ay u adeegsato waxaana la fila oo aan waxba ka dhicin jiidadida xeero ciyaarta loo yaqaano iyo ceerigaabada oo badiba ah ciyaaro iska agdhow deegaan ahaan burur iyo walaso wigle iyo waalo iyaguna waxay ka mid yihiin ciyaaraha soomaalidu ay hiddaha u leedahay gabley shimbirtii gabdhaheenan reer magaalka waayahan dambe u badan ee ay adeegsadaan inta ay marar dhexda kusoo xidhaan dabadeedna ay xaafadaha hortooda ku ciyaaraan oo ay dhahaan gabley shimbir gaalada eryay gabley shimbir godka ugu galay ayaa ka mid ah ciyaaraha kol horeba dhinaca miyiga caanka ka ahaa dhinaca magaalooyinkase ugu soo horgalay saarkuna waa ciyaar dhaqameed soomaalidu ay aad u adeegsan jirtay wuxuuna u kala baxaa labo mid weli hadhaadi ku sii ah dhinaca miyiga iyo kan saarka ee soomaalidu haddaba ay adeegsato istunku waxa uunuu ka mid yahay ciyaaraha taqaaliidda aahaarta raadadka iyo abka soo gaadhka soomaalida muujinaya ee soomaalidu weli ganafka iyo dhinaca ay haysato haddaba maxamuud diiriye faarax baalbaal waxa uu isagu ku dhashay degmada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag halkaas oo uu ku barbaaray waxaana uu sida caadiga ahba uu caan ku ahaa ciyaarta ceerigaabo loo yaqaana ee degmadii uu ku barbaaray caanka ka ahayd waxaana uu ka gaadhay darajada bulbul oo ah
ninka ugu sarreeya ee ciyaartaasi. ciyaaraha kale oo caanka ku ahaa sida usba uu sheegay waxaa ka mid a batar iyo weliba ciyaarta kale ee howlaabay la yidhaahdo. hana haybsan ayaa iyaduna ka mid ah ciyaaraha uu ku fallaa. 1942 sida uu abwaanku ku xog warramay waxa uu u dhaqaaqay dhinaca magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, halkaas oo isaga iyo kooxuu hogaaminayaaba ay u tageen fantasiyo dhinaca dhaqanka oo waqtiyada hore Soomaalidu waqti barwaaqeed ay halkaa ku soo bandhigtay. damcuna wuxuu ahaa inuu ka qayb qaato masraxiyada Soomaalidu ay dhinaca barwaaqada halkaa ugu soo kulantay, waxana uu ku mala weynaaba in uu isagoo darajadiisii bulbulnimo ku goolaaftamaya uu ciyaarta ceerigaabo Soomaali oo idil ku afduubi doono. kolkii halkaa la iskugu yimi oo Soomaali bari iyo bagaxba ka socotaaba ay ku kulantay, waxa uu kolkii horeba diiriya balbal uu hantay guud ahaanba dadkii Soomaalida ay halkaa xafladda iskugu yimid. haweenkii iyo hablihii halkaa goobjooga ka ahaana diiriya balbal oo halkaa uun ka wad buu afkoodii ka sinaaday. waxse kol dambe uun soo dhaqaaqay koox dhinaca jigjiga waayahaas uun ka soo gashay oo dhaantadii ay caanka ku ahaayeen goobta la yimid. kol keliya ayaa dhaayihii dadkuba ay dhinaca dhaantada u jeesteen, balbal iyo kooxdiisiina ay ka mid noqdeen bulshadii uun dhaantada daawanaysay. waa maalinta uu goosanayo in uu dhaantada ka warkeeno. burcuu baabuur ka kaxaystay barbaruu sii maray. hargeysa inta uu ku hakaday buu dabadeedna jegjaga uga sii boqolay. umuurahaas oo idil isaga oo ka xog warramaya ayaa balbal idinku soo aadan. balada dadka uu kula kulmay jegjaga waxaa ka mid ahaa maytinaar, cudubille, sagal, dhugdhugley iyo xawaadle. kolka aad magacyadani dhagahaaga ku soo dhacaan baad isweydiinaysaa dadkan iyo magacyadoodu talow maxay ahaayeen. bal waa kan balbal oo inooga faalloonaya magacyadan iyo sida ay ku yimaadeen. markaa nimanka magacyadooda marka lagu sheego waa yar dhibaysaa, laakiin mid walba wuxuu kula baxay. sagal askari buu ah, cayaartii oo soconaysuu ka baqayaa faylkii in laga xaadiriyo. marka cayaarta wuxuu ugu horraysan jiray erka sagal kuga roolay bal sidoon ka yeerahay, alla saara meelay geliyay bal sidoon ka yeerahay, alla siidibaa dhacay bal sidaan ka yeerahay, alla saajiyey alla soo kaclayey bal sidoon ka yeerahay. cirka sagalku waa roobay buu ka bilaabay, sagal baa loo bashay. dugugle wuxuu u waraysan jiray cayaarta sidii duguglay dhuldheer maariga oo dhawaaqayga loo dhegaystahay. xawaadle wuxuu ugu waraysan jiray xariir laga keenay xaafuuniyo hartuwaday xaaji baalbaaliyo, xariir laga keenay xaafuuniyo xawaadleba xiisa loo bacday, xariima yarsoo xawaarey dhowtaadaangeeyo xeebaariyey, xariima yarsoo xawaare buu waraysan jira. xawaadlaa loo dhashay. cabdibille ayaan joogin cabdibille miyaay xarfi oo ala leedahay ayuu waraysan jiray. maytinaar midii magacayga doonaysay malyuun dire maytinaariney ayuu waraysan jiray. waa macallimiintii markaa joogtay, iyagii baan dhex gala xoogaa lacagaa dhigtayna iyagii baan ku mashaysiiyo qaadka iyo sigaarka iyo. marka dhaantadii waa dhegaysanayaa, sida xubnaheedu u dhacayaan. xagga laabtana makiinad gooni aanu ku samaysanayaa, bal siday u wadaan aan u wado. maxamuud diriya faarax balbal intii uu joogay magaalada jigjiga
waxa uu si weyn ugu kuurgalayba dhaantada iyo qaybaha u kala baxday sida uu dhowaan inoo sheegayna waxa uu qalbigiisa isaguna ka diyaarsanayay nooc gooni ah oo uu doonayo inuu dhinac ula baxo waxaana uu taariikhda markii ugu horeysayba kusoo kordhiyay dhinaca dhaantada waxyaabo badan oo magaalooyinka taabanaya waxa uu dhaantada kuwa dhugtay qaabkii hanaankii uu qabsoomay dagaalkii labaad ee dunida iyo weliba kii koowaadba maadaama maytunaar cuudubilla sagal dhugdhugle iyo xawaadle dhinaca miyiga ay ku daaheen isna uu ka reer magaalsanaa waxa uu qaatay kaalinta dhaantada u qaabilsan dhinaca magaalada balada waa kan baalbaal oo markii dambe ee uu qamaamiirta dhaantada ku noqday isaga oo inooga warramaya darajada la guddoonsiiyey sidii horyamaanka gaaba wataniyo yurubyo agaasimay albaabkaasu waysna loo furay ina reerugaaska dhashado amar weynaan ahay aanan waxaa ka dooni aamina nabiya arrintaagaydeenay markaasaa noqday macallin weynaaday yaa oo duluba halka la iigu tulay alfaan daroomo la leeyahay waa laf dhanan korna doonati ofisarka la baalbaal waa igu tulay waan soo galay anigoo duntii iigu tulantay hargeysa maxamuud diriya baalbaal oo horeba haliyey weyn ugu ahaa dhinaca howlaabayda batarta ceerigaabadana bulbul ku ahaa horena loogaba yaqiinay degmadaas ceerigaabo laaskii caanahana taageero weyn ku haystay burcane xafladihiisa iyo fantasiyayaasha waaweyn kusoo bandhigay jiray teer iyo booramana laga yaqiinay isaga oo maantana jigjiga dhexdeeda dhaanto darajo lagu siiyey taa macnaheedu sawma aha baalbaal oo bari iyo bagaxba ka dhex muuqday caynkaas bay u eg tahay kolkii isaga oo darajadii dhaantada soo qaatay uu hargeysa yimid ayuu durbadiiba bilaabay inuu uruursado raggii la afuufi lahaa balwada inay meel la gaadhsiiyaan bal waa kan isaga oo dalbanaya ragga uu u baahan yahay ciidanka uu u baahan yahay iyo fardaha uu doonayo inuu ku damaashaada raggana boqor caadiloo wacaliyo ninkii diinta ee bahay barayo barbaar xoogle waanabahay ilmeena barbaar xoogle waanabahay hubkana midkaa tan soo baxay iyo ka boodaya waanabaarahay faraska xamar boodaarane iyo baroorka casmaarahay lodana bullabay guduudka cad iyo bariis isdhaan baarahay aangeena boqor weyntaan socon iyo hashii badisaan baarahay gabdhaha baarafuunka sooro iyo midii maradeeda bayl ka dhigtaan nabasari noqon baarabaarahay nabasari noqon baarabaarahay maytinaar ayay si weyn saaxiib u ahaayeen oo magaaladana kusoo dhoweeyey sida diiriya baalbaal uu xog waran codaha ku sheegayna maytinaar qoyskiisa waxay ahaayeen reer dhaqan oo xoolo badan leh tusaalahaan wuxuuba leeyahay maalin cawaysyada ka mid ah annaga oo damacsan inaanu haasaawo tagno ayaanu neef dhan oo geela u xaraashnay in aanu shallooyin iyo saliid iyo agabka magaalada kusoo iibsanno maytinaarna waxa uu diiriya baalbaal farta ugu fiiqay warla oo jigjiga aad looga yaqaanay dhinaca dhaantadana si fiican u tiqiinay warla waxa u dhufaanan rag aan tiradooda lasoo koobi karaynin kuwaasuu ka haybaysta walow magac dumar ay sidato misna uun waxay la saami tahay oo ay dhaantada wax kula qaybsataa ragga cawaysyada ka mid ah ayay maytinaar iyo diiriya baalbaal oo wada socda ay soo waajaheen gurigii warla ay ka deganayd magaalada jigjiga halkaas oo qoyskeeda qayb ka midiiba ay ku sugnaayeen kolkii diiriya baalbaal uu guriga soo galay ayayna haweenaydii salaan kusoo dhoweysay waxayna tiri ku gartay oo adigu waxaa tahay maytinaare kumuu ahaa ninkan aanan wejigiisa garanaynin
horay u maqashay magaca baalbaal muuqaalkiisase hore umay arag qudhiisu wari kama seegana muuqaalkii ugu horreeyeyse hadduu arkay sidaa uu xog warrankaa diriya ku bixiyey kolka uu arkayo warla waxa ay dhinac fadhiday oo dhinaca bidixdana ay ku haysay rag dhinaca midigtana ay ku haysay dumar kolkaasuuna maytinaar farta ugu fiiqay oo uu yidhi warla waa taa ragga iyo haweenka u dhaxaysa kolkiiba maytinaar ayaa bilaabay in uu baro diriya baalbaal oo uu faallo kooban ka bixiyo wuxuu yidhi ninkaad bilanay maqlayseen iyo bilaad laga naaray baalbaal yaa barlay caawa meesha soo galay baardheer waan kuu bishaarayn sidii baarqabgeel bidhaan quruxey naahoy haboodina beerka soo saar sidii baarqabgeel bidhaan quruxey nahaboodina beerka soo saare buu maytinaar yidhi warla oo iyaduna dhinaceeda hadalka ka qabsanaysa oo sheegaysa baalbaal inay hore bari ugu maqashay shiddadiisana ay la socoto ayay tidhi baalbaalku makii la sheegaayee shinkaa beri soo gubaa yimi baalbaalow makii la sheegaayee shayddaanku ka rooray baa tahay baalbaalow makii la sheegaayee hablaha shiriye eeshu baa tahay war hablaha shiriye eeshu baa tahay horracaa bayna isku barteen oo dabadeedna ay halkaa ka sii wada dhaantayn doonaan amase ay ka sii wada haansaawi doonaane bal waxaan iminkaa dhegeystayaasha qiimaha mudan oo aan jecelayaa in nagu wareejiyo bal diriya baalbaal oo umuurtaasi bal ka faalloonaya marka horese bal sida magacan warla uu ku yimi aynu qadar ka faallayno maadaama aynu maytinaar cudubile sagal dhugle iyo xawaadlaba aynu kasoo sheekanay sida magacyadoodu uu ku yimide iyaduna warla waxay kula baxday magacan iyada oo diriya baalbaal u jawaabaysa waa marka ay leedahay miyaadan warkaygaba haynin waxay tidhi wallaahi ma kuugu dhaartaa waxa wacadkii ilaahiya waraaqi miyaanay kuu iman warkayga miyaan la soo dirin warlaan ahay oo warlaan ahay oo wanaagba miyaan aqaanahay wanaagba miyaan aqaan wahagaag bal haddaa diriya baalbaal iyo xogtiisii warla dhex martay baan idiin kala faaruqayaa gidigiinba dhegaystayaal dhegaysa haboon haweenku ku soo qabaabahay haweenku ku soo qabaabahay sidaa iyagoo heesahaygii u socday ayaa markaa waxaa jirta naag la yidhaahdo warla oo dadka oo dhan ka badisay macallimiintaasoo dhan hees maytinaar oo ugu afdheer naag buuxooda ka baxshay naagtii ilaa ka saar intaad maytinaar meeli cibaad muraadunba seegtay maan daran bay kala daba gashay ilaa dibadda ka dhigtay naagtaas oo iyana magacayga haysata anna aan magaceeda haysto ayuu maytinaar yidhi ina keen reerkooda xooga badan oo awrgoodaanu iibsanay saabuun iyo sigaar iyo waxaanu siisanay khaliidda lagu feerto iyo garfeeraha shallooyinka iyo waxaasaanu siisanay awrkii dhanba saddexdaanu dhexan reerkoodii inanta reerkoodii baanu tii gurigeedii baanu kii ay iyadu oo hooyadii tiri alaabtii baanu dhiibanay dhallinyaradii meeda gurigaa hoose aroosoo laga cayaaraya laba qoraan islana arooskii baanu rasaastii baanu ka dhigi waryi baa laga qabto gudahaada war meelay warli meel waa taa dhinaca ragga ku haysa buudi midigta bidixdana haweenka halkaa ragga doorku iska soo gala isaga waxaa leeyahay ninkan ku muhaadiga ku garanaya nakama fogan buud ugu jawaab marka maytinaar wuxuu ogaaday bayuudda iga soo baxaysa inaan anigu naagtaa ceen karaa sidaa aawadeedu ila soo duuray markaa xataa kuwa ay la cayaarayso ee jooga meesha qaataa laga jawaayo ana ifracsayen hujuumka markaan isu heeso markaabuu maytinaarkii i waday oo macallinka ahaa damcay inuu sheego magacaygii sheego wuxuu yidhi ninkaa bilayd maqlayseen iyo
بلاد لغنا لبالبالي من كابيني مقليسين iyo bilaad laga naadi baalbaal yaa barnay caawa meesha soo galay baardheer waanu ku bishaarayn sidii baarqabgeel bidhaa quruxayna foodine beerga soo saarey markaaba way garan waxay tidhi baalbaalku makii la sheegaaye shinkaa bari soo gubaayini baalbaalow makii la sheegaaye shaydaanku ka rooray baa tahay baalbaalow makii la sheegaaye hablaa shiriye shubaa tahay wallaahina warkaagaaye allah allah wallaahi matuwaan baa tahay waxay tigi manaa waali mana wareersani aduu baanku waa binayahay wallaahina warkaagaaye warlay ma wacay ismogaa tahay waxay tidhi waxaad miyahoo aslu badan awowgay waxay ismogaa jira waxaad miyah oo qoordaaranay baan awowgay waxay ismogaa jiray waxaan idhi waxaad miya oo qoordaran waxaad miyah oo itaal daranay baan awowga waxay ismogaa jiray إلينا أبوغا وعيش وقاجيني وحيتي جواب تماليغا قادا أيايغا جوتا جاريا كل كان كوجوك صدا جابي بالبالو مجوك صندوق تاهي وحيني مقبوني لفلان تلماما مقبون تحلبان تلماما متي قاعد بنايا هيان قركبا حلم بانت الماما كشانتي قلبي ما هي قد طايلانت الماما أروقان كانت مدايساي لا قلو لا يتوب الدوغوي أفيس وقبها الوقو سبيلا لغواي وعنتي لسلي لبيعو لما يقلبتو لفولك قسارتي بيقلي أما سنين آرو صور لحي ودربا حضرنا يكون جري ama si haldhanaantay aan imanin oo sabaankaaba ceelganan arag haddaan ku dharbaa awaad biixiye armaadhiga dhaawsan weydahay ninkiisa jooga jijiyo dheegseeda xukuma iyo adligiisa oo waaran ayaan waha qabto waxay sidii dheekisoo buugii dhigay saabawii dhigayso ay dhibi wejiga dhinacaaw sii dhigay ama si dhabdhab loo dharaar baaxado ku dheer maaday reero dhiiqaba kolkan ku dharbaaxo waa diceen ayaahe ma dhaawrsan doontahay eleena ayaahe ma dhaawrsanaysahay waxay tii wallaahina kuu dhaarta waxaa wacadkii ilaahaya waraaqi miyaanay ku iman warkayga miyaan la soo dirin warlaanahay oo warlaanahay oo waraagba miyoanaqaanahay waxayna aniga magacaygu baalbaalo badoobiya keentay baanahay oo bambaane la tuuray baanahay baadoonku gubaaya baanahay oo bareekii duusha baanahay balbal maqasho waataa baxsatee miyaanka buu tareeyahay waxay tidhi hadaan ka biraari doonaa higaad baan u yeeri doonaa aduu kale waa hallayn jiray ilaa cunkudaayadaanahay habeen ku xuloogaanahay waxaanahay aar hamaansaanaye ihaybso intaan og dhicay waxaanay alay xun haddaadi mooday waxaanahay wiila siiriya
إذا قضي البرطارحي من لغة آمنة أطوري يؤار إلى أحماسنا إنا قرورص إنتو واركوه ومي إلا قرورص إنتو واركوه ومي ويلو waxay tiri kabkanka bilaaci doonaa oo korbaan ugu yeeri doonaa oo kadeed mid la soo badatay warkuu keenay kaatakaatuuyey kablawgan lagoo malayahay kaatakaati markaa wuxuu noqday garab waa af sawaaxili iyo midab diin balahay iyo garab taasaan ka xanaaqay waxaan inay tahay aakhira hubsadeen inuu raggu suuq la meel yahay inay gabdhihiisa qaafeen ay si dhoobtu ka yeedho suuqyada sidaa waa inaad ogaataaduna warlaay samir baan ku leeyahay naasafkan nahay niman suaadiina iyo soomaali afkood ma diiday inuu samirkiiba kaa tegay aad salaada dhaqaaqday baa sala saweynta inaad la saaxiibtay aad afkooda salowdulaasana sidii saac kali shan soo dhaayay kaasiraama ka dhooa wala tahay lanaas waa xeeray dhaawacantay waxay tiri midley la cabeeyey baanahay oo macmiiraan dhacaynin baa tahay adigu dhar lalaabay baa tahadoo dhimbiil ku dhex qaadi baanahay adigu dheri soo dhacaa tahay oo dhar dhaaraan jabaynin baanahay haddaan ku dharbaa xogaa diiciyey harmaadu dunyeena weeyahay waxaan shiinkaanka bilaabi doonaa oo shirkaan kugu caali doonaa oo dadkaasaan u sheegi doonaa anaa shuqulkaaga ku qaban arladan ka shaqaysan maysaan boodhar sheeqadaa tegiyo naasha uu maray sheeqaraa wada shirkaanu ku saari doonaa shigaab iyo meel shishaa tegiyo arlada ka shaqaysan maysaan shantuu shaabadee yayawgeena la sheegay miyo halhayde leena la sheegay miyo halhayde leena la sheegay miyo halhayde markaasay tiri yuuba hadmina xaj waxay tiri kaabkaan ka bilaabi doonaa in korbaan ugu yeedhi doonaa kadeed mid la soo banaa tahay waxay tiri dabaan ka bilaabi doonaa oo daliig baanu yeeli doonaa dadow maqan dooda beerguba dadow maqan dooda beergubay dabaan ka bilaabi doonaa oo daliig baanu yeeli doonaa dadow maqal doodaanani oo dadow maqal dooda beergubay dayuurad yar oo dushaa mari aan soo degin daahanow garo waxaan dhiman oo dhulkii ka bataa dhaqaaqaynin doohanow garo wax ka maqan meel la kaa jirinoo muskeena ku meera maad garanay waxaad muutato macan badan oon jidinka marayn balmaale abeesu afkii dakala haysaw laaminay aadanoo garay intaa markay igu xidhnay waxa igu cugkus noqday waxaad muutato macaan badan markaa kaa waxaan ka dhigay ilaa wax layga sugayo maaha waa wax gole loo tuban yahay shahwadda iyadaa rag iyo naagaaba markii dhacayso u macaay kaa ka dhig maahay laakiin markii dambe waxay u qaadatay si kale waxaan idhi dayuurad yaroo dusha mariyo aan soo degin waa daruurahay waxaan dhimano dhulkii ka bataana dhaqaaqaynin dhooha waa dhagaxay
وحكام مقل من لك أجيرمو مسكنكم روا مهوي waxaad muuqato macaan badan aan jidin ka marayn waamino abeeso afkeeda kala hayso la aaminay aadan waa aadey halkaa markaan joognaa ayaa anigu la wareegay xidhaalay inaan xidhana furana laakiin iyadu waxay ku sibnayso aan la garanay kolkaa baabuurkaan la galay berihiis delkooyo daynana tahay oo abreyshinka diiriyaanahay kuweelkiyo kolabka tahay oo naafudaadka kulahayaanahay suwayskiyo saacadda tahay oo salafka istaadhabaanahay dukaankiiyo shaagaga tahadoo naa shufeerkii wadaayanahay shufeerkii wadaayanahay ilaha iyo buurigaa tahay oo bundaadka la saaro baanahay baabur soconaya baa tahay sarkaalkii samaystay baanahay tayuubkiiyo taayirkaa tahado bamka lagu tuujiyanahay kaasay ka joogsan ka hadalbaanay warba ama hadda ka hadal waa igu wada qaba markaa baydkii anigu anaa weyngareeyey gacanta laygu saaray saddex habeen markaanu joogna aanu leenahay taga ayaanu habeenkii dambe baagi baa naloo dhigay fadhi sidaas oo kale ah waa isugu heestay markaa wadacaadi weyi anaa yidhado waxaan inaan badiyo inaan biyo inaan badiyo inaan biyo badniyay caawa buugay furay inaan badsiyin kale waxay tidhi sidii banka baali waxay tidhi sidii baashay oo ban weeraray inaad badisaa bilaahiya markaad boodo baalaluu farasiyo ma baalguraygo la moodahay ilehe ma baalguraygo la moodahay taagteedi bay doonay waxaan sidii banka baali oo baxay bilaan qurux baan casuusleey sidii bayax baan la soo baxay bugoy gabaadh baan casuusleey markay boodo baalalayda qayrkiyo baqdheer buula lahayd ma moodahaney badheer buula lahayd ma moodahaney halkaa markaan jooga anigu la wareego waxay markii la qiyaaso qoor dheer qaraamkiiyo qoonka soo baxay naaqu dheer luamay iska raarahay udheelugama iska raarahay waxay tidhi markii la qiyaaso qaadi okow qurdhaan maqaadi baa tahay qaraamkiiyo qoon ka soo baxay udheelu sidee diidnahay halkaa markaan heestaas ku fogaanay ayaa arkay iyadiyo yar runoonaysa ilaa anagu qaad baan aana yar culimayse way yar ka koocday waasan ka gaadhsiiyey waxaan idhi taiyo jigjigiyo jiniyo baajifaar jawaabtaadi baan jilqabi oo jigdernin maroo jilcaanahay jaliilad cabaysanaan jabin iyo joogdher diidanaawi baanahay adoo jiibin kama joogi karo ee sidee jiifku kugu soo dhacay intay booday tegi gilgilatay waa areenkaan ka quustay naagtaa heesta halkay ka saaran tahay intay madaxa saawigishay tegi jawaabtaani baan jid soo maarado allah waar ma jiifo waajibaysnahay ma jiifo waajibaysnahay antadu dhaqankii daweeyaane
warma jiife waan jibaysnahay waa ereyadii warla waxayna ibabay u tahay barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo caawa ah maaha moogan aan ku soo qaatay taariikh nololeed